marka arrintoodu aad bay maartay dad ganacsi iyo nolol hadii markii hore adkaadeen ahaan ma ahayn oo horumar maartay si lahaa marka xoolo nool bay dhaqan jireen xoolihii way abaaroobeen way maartay ka dhamaadeen sida daraadeed baa bulshadu aad qabalaha ay maartay ugu soo badatay hadda qabalo lama xisaabi karo hadda booyadaas weyn noo imaatay walaaladaana noogu deeqeen jeergaan laba jeergaan baan ugu qaybinaa anagoo odayaashii iyo maamulkii iyo qabalihii cid walbaba iyo macal dumarkii maartay iskaalmaysanayna baan ugu qaybinaa inaysan maartay mararka qaarkood maartay hadda naftu waa cajab weeyaan cadashigu aad u daran yahay shariicada islaamka waa kii la yidhi cadashigu xoog buu geli karaa laakiin cuntada xoog ma geli karto in qof kale bini'aadamka lagu xadgudbo oo qof wixiisa aad xoogta lama ogolo laakiin cadashigu shariicadu waa kay maartay aad buu u daran yahay naftu sabab buu noqon karaa in maartay xayaatadu ay goodo marka walaalayaalka waxaan leenahay walaaladaana reer Gaaris ee culimada ah Allah ina niibaano maartay jannatul firdawsana Allah iniga maartay abaal mariyo biyaha iyo gurmadka ummadda aad siiseen maartay ilaahay inii kalsiiyayna waxaan leenahay luxudka insha Allah taala iyo maartay qiyaamada insha Allah taala Allah maartay ajirkeeda inaga siiyo Allah inagu qiyaama Allah inagu shafeeco insha Allah taala waxaan rajaynaynaa insha Allah taala wixii kale oo kari kartaan oo maartay alxamdulillah walaaladiina islaamka aad maartay ku taageeri kartaan inaad ku soo taageertaan sifo qiyaamada maalinkeeda inaguna qabrigeena ugu maartay midada kale waxa weeyaan aqribadii iyo ehelkii weeyaan marka insha Allah taala taasna waxba ku sii dheeraan maayo waxaan leeyahay luxudka leeshan Allah inaga siiyo waan inii ducaynaynaa inaad soo taageertaan wixii aad kari kartaanna waa inaga codsanaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.